satirkayaku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkayaku ilaaliye سعد القرحانيو سناني عدالة بان سعد القرحانيو سناني عدالة بان كما وذا سوغيناي سلقيقاقو وشرفي سهانكاقو وقولي سعداكاقو ونبدي سفركاقو وقيري يا سماد برواقادي صدوو صدوو مدحوينهنو صدوو 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 مدحوينهنو صدوو ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku sacaabatu mayane adigay ku sugayaano ku sacaabatu mayane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku sacaabatu mayane adigay ku sugayaano ku sacaabatu mayane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخيارتا حلبانada labada gole sharaf bay runtii noo tahay inaan maanta soo dhaweyno mudane cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa madaxweynihii galmudug wasiirkii federaalka siyaasi weyn oo rugcadaaya waxaan aad iyo aad ay sharaf noogu tahay inaanu soo dhaweyno oo dalka muddo dheer ka maqnaa mudane ku soo dhawow dalkaagii mar kale intanoo xildhibaana oo runtii xiise gaara ku qabay muddo dheeraad is arag annaga aad iyo aad bay runtii noogu tahay maanta oo jimca inaanu muxuu ahaayey halkan ku kulanno mudane cabdikariin wuxuu ku socdaa transit buu ku yahay halkan suu noo sheegay wuxuuna ku socdaa hobyo marka inaan fursaddan iyada ah bal muxuu ahaayey is aragno ayuunbay muxuu ahaayey ay tahay marka muxuu ahaayey laysa salaamo wixii muxuu ahaayey lays odhan karana markaasi uu talaana markaa uu yidhaahdo annagu se muxuu ahaa runtii aad bay farxad weyn anoo ku hadlaya xildhibaanada labada gole ku hadlaya magacooga iyo iyo akhyaarta sharafta leh soo dhaweynta ka soo qayb gashay marka soo dhawow mudane cabdikariin maanta ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno mudane madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo ah shakhsiyad sidii loo sheegay qiimo weyn wadankan ugu fadhiya wasiir hore oo annaga aan wada shaqaynay madaxweyne hore oo galmudug siyaasi aan jecelnahay xormo weyna inta in loo qabo waxaa muujinaysa dadka ka hor yimi qiimahooda iyo culayskooda waxaan ku leenahay soo dhawow madaxweyne aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay inaanu maanta kuu nimi oo aan kugu soo dhaweynay madashan bismillahi raxmaani raxiim bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal mas-uuliyiinta kale ee kala duwan runtii sharaf aad u weyn ayay ii tahay maanta
sidaan qiimaha badan iyo raynta ah ee magaalada Muqdisho dalka iyagii igu soo dhaweeyay muddo dheer kadib markaan ka maqnaa arrimo aniga iyo duruufo aniga ii gaar ahaa daraadeed ugu yaraan 2 sano iyo bar ku dhawaad ayaan ka maqnaa dalka marka sharaf ay ii tahay runtii inaan dalka dib ugu soo laabto inaan dadkaygii dib ugu soo laabto in dadkii asxaabta aan ahayno siyaasaddan saaxiibada ku ahayd aan dib ugu soo laabto aad iyo aad ay sharaf igu tahay waana ku mahadsantihiin idinkana soo dhaweynta iyo marxabaynta aad soo dhaweyseen sidoo xildhibaankii igu horeeyay uu sheegay safar gaaban ayaan ku imid waxaan u gudbayaa dhinaca iyo magaalada Hobyo oo shir halkaas ka socda aan rabo inaan ka qayb galo insha Allah taala waa soo laaban doonaa akhyaartii asxaabtii kullina waa iswareysan doonaa waa wada sheekeysan doonaa marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta soo dhaweyseen wixii eraya kala ah intaan ka sii faahfaahsan meeshaan u socdan ka jeedin doonaa insha Allah taala aad u mahadsantihiin السلام عليكم